waqooyi bari TV. waxaan leenahay shirka halkaas maanta ka furmay waa hal bacaad lagu lisay waxaana uga hadlaynaa dadkii u matelayay goboladan siyaasadda in aanay qayb ka ahayn waxa ka soo baxana dadkan iyo masiirkan oo aanu qayb ka ahayn waxa laga hadlayaa oo laga wada hadlayaa waa xuduudaha iyo aayaha masiirka Soomaaliya oo dhan baa la rabay in la isu keeno laakiin ma ahayn in wax Soomaaliya ku si kala tagayso looga wada hadlo dhammaan siyaasiyiinta shirka ka qayb galaya in dib loo fiiriyo oo dib loogu noqdo gogosha hadda la dhigay waxa ka dhiman lana qabyo tiro markay ku haboon tahayna la dhigo haddaba inagu waxaynu aaminsanahay Soomaali midaysan waxaynu aaminsanahay calanka buluuga oo shanta xidigood leh waxaynu aaminsanahay ummadda Soomaaliyeed waxaynu aaminsanahay ummadda Soomaaliyeed barwaaqadeeda iyo horumarkeeda asbuucii ugu dambeeyay in Djibouti la isugu tagayo magaalada madaxda Djibouti oo ay isugu tagayaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Somaliland waxaynu baaq dheer u diraynaa oo baaq dheer gaarsiinaynaa oo muujinaynaa shucuurteena inaynu ku medelin Somaliland meesha aynu ku medelin dawladda federaalkuna aynu ku medelin shirka Djibouti la isugu imanayo aanaynu ku medelin oo ummadan cid uga qayb gal lahayd iyo cid masiirkeeda ay metel lahayd aanu joogin meesha maanta bisha ay 14 June bishii lixaad shirka Djibouti la isugu tagay oo ka furmay baanu cadaynaynaa inaanan annagoo gobolka Sanaag degmada Badhan la Asqoray area dadka ku nool oo degan ah shirka inaan cidina nagu metelin inaan siyaasi nagu metelin inaan dhaqan nagu metelin total inaan cid nagu metashaaba jirin waxa ka soo baxana annaga aan nagu shaqayn doonin maadaama aan qayb ka ahayn shirka annagu waxaanu nahay Soomaali waxaanu nahay asali Soomaali midnimada Soomaaliyeedna waan soo dhaweynaynaa waana u taaganahay in badan ciddii Soomaalinimada diidanayd oo maanta Soomaaliya wada hadalku u bilaabanayo oo ay ka mid tahay beesha waqooyi ee Somaliland hadday Soomaalinimada ogoshahay ama ay isfahan ka dhaco halka aad baan u soo dhaweynaynaa inta markaan ka baxo annaga haddaanu nahay beesha degan gobol Sanaag waxaanu sheegaynaa oo cod dheer iyo cod gaabanba ku sheegaynaa inaan mas'uuliyadayada iyo masiirkayaga iyo noloshayada cid inagu metelin Muuse Biixi in badan baan la hadalay rag iyo dumarba cod dheer iyo cod gaabanba waa ku hadalay maanta inuu annaga rajo naga qabo oo yiraahdo gobolkaas sheegto ama yiraahdo waan metelayaa waxaan u arkaa arrin liidata quusi waa hadda waxaan leenahay Muuse gobol Sanaag ka quuso caawa ma metashid mana meteli kartid runtii halka waxa ka cad inaysan masiirkii aanu ku lahayn ama masiirkii Sanaag inaysan cid ka hadlaysa ama ku metelaysa aysan jirin halkan waxaan leenahay maanta oo aanu ku baaqaynaa aanu cod dheerna ku leenahay inaysan cid ugu metelin shirka furmay maanta inay Soomaaliya isku timaado ciidamadiidana anigu ma aanu diidanin in Soomaaliya ay misteeda ahaato ma kala maqnaato midnimada Soomaaliya waa muqaddas inay la yiraahdo waxa ku wada hadlaya Somaliland iyo Soomaaliya waxaan cadaynaynaa sida cuqaashu ka soo warantay dhalinyaradu ka soo warantay haweenku soo sheegeen inaanay wax ka khuseeya shirkaas jirin sida ay mowqifkooda u cadeeyeen ay ka yihiin cid ku matelaysaan aan jirin taasaanu cadaynaynaa oo cod dheer ku sheegaynaa inaan shirkaasu shirna quseeyo ahayn ku soo dhawow bogga aan ku leenahay YouTube-ka ee waqooyi bari TV fadlan si aad u heshid wararka ayada fadlan subscribe saar jalasku waxa kuu sahlayaa in la si fudud ka heshid wararka ayada mahadsanid daawadaha sharafta lahu mar kale ha u deeman la'aan bogga aan ku leenahay Facebook ee waqooyi bari TV si aad u heshid wararka ayada isna booqo bogga aan ku leenahay Facebook ee waqooyi bari TV